وحاناي وحاربنا وحاناي وحاربنا وحاناي وحاربنا نمر اليوم maskax ahaan maxaad ka aaminsan tahay markaad maqasho aaladda TikTok waa aalad ah shaqo abuur mise markaad maqasho qof leh waxaa ka maaraya nolosheeda maalinlaha ah maxaa sakarun ah lacagaha tirada badan oo ay sheegtaan dhalinta Soomaaliyeed marka ay maqleen in la xiraayo TikTok waa aalad laga leeyahay dalka China waxaa soo saaray shirkadda ByteDance sanadu markuu ahaa 2016 xafiisyo kala duwan ay ku leedahay Beijing, Los Angeles iyo Moscow aalad ahaan waa mid isticmaalkeedu u badan yahay dhalinta diidmada dalalka qaar waxaa ka badan dalalka u sameeyay aqbalka dalalka iska diiday ee u cabsada siyaasadda iyo dhaqankooda waxaa ka mid ah Afghanistan, Belgium, France iyo Denmark wadanka loogu isticmaal badan yahay waa wadanka Mareykanka Soomaaliya qalqal ku saabsan TikTok ayaa soo wajahay dhalinta Soomaaliyeed kadib markii dawladda ay ku dhawaaqday in la xiraayo TikTok iyo aaladaha kale ee soo wehliya sida Telegram iyo OneXBet TikTok waa aalad shakhsiyan loo isticmaalo oo uu qof walba akoon ka samaysan karo isticmaalkeeda uuna noqon karo mid xun iyo mid wanaagsan balse su'aasha taagan ee aan rabno inaan caddeeno waxay tahay TikTok ma laga samayn karaa lacag badan D'Amelio iyo Qabi Lam waa laba nin oo aaladan saameyn xoogan ku leh waa labada qof ee lacagta ugu badan ka sameeyay TikTok Qabi Lam ayaa ka sameeyay lacag gaaraysa $92,000 dad badan ayaan fahansaneyn isticmaalkeeda kaliya waxay isticmaalaan inay muuqaalo ku soo gudbiyaan balse dhalin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka sameeyay lacag fara badan ayagoo marna isticmaalo views marna xayisiin marna live TikTok ma dhihi karnaa waa aalad shaqo ah mana ahan in la xiro mis waxaan dhihi karnaa hala xiro ma ahan mid saameyn ku reebi karta dhalinta